Assalaamu calaykum. Maanta waxaan soo koobaynaa filim burcadbadeed laga sameeyay oo lagu magacaabo Captain Phillips. 2009kii, badmareen lagu magacaabo Richard Phillips ayaa barsooyinkiisa soo xirxirtay si uu ula wareego hoggaanka markab xamuul oo lagu magacaabo MV Maersk Alabama. Waxa uu mas'uul ka yahay 23 shaqaale iyo 17,000 oo tan oo xamuul ah oo laga soo daabulayo dekedda Salalah ee dalka Yemen kuna sii jeeda magaalada Mombasa ee dalka Kenya. Captain Phillips wuxuu ka soo tagay gurigiisa isaga iyo xaaskiisa waxay ka sheekaysanayeen caruurtooda iyagoo aanan ogeyn waxa dhici doona mustaqbalka dhow. Dhanka kale, magaalada Ayl ee Soomaaliya waxaa ku soo wajahan koox burcadbadeed Soomaali ah kuwaas oo dadka masaakiinta ah ku qasba inay u soo afduubtaan maraakiibta ganacsiga. Mid ka mid ah raggii la adeegsanayay oo lagu magacaabo Cabdiwali Muuse wuxuu doortay 3 nin oo kala ah Bilaal, Najiib iyo Cilmi. Afartooda waxay soo qaateen hubkooda waxayna soo qaateen dooni si ay ugu howlgalaan. Waxa kale oo ay haystaan qalab la shaqeeya satellite-ka kaas oo u sheegaya halka uu markabku kaga jiro badda. Waxay ogaadeen in maraakiibtu isku dhow yihiin marka laga reebo hal markab oo ka fog kuwa kale. Markabka ay sheegayaanna waa MV Maersk Alabama oo uu Captain Phillips watay. Burcadbadeedu waxay la wareegeen oo ay maqlayeen wicitaanada uu kabtanku u dirayo xarumaha ciidamada badda ee Mareykanka iyagoo isticmaalaya macluumaadkaas. Waxay heleen wadada markabku marayo wayna daba dhigteen. Waxay ku qaadatay maalin in ay markabka qabsadaan. Habeenkii, Captain Phillips wuxuu internetka ka baaray xogta burcadbadeedda joogtada ah ee ka dhaca aaga ay ku sugan yihiin. Subaxii xigay, wuxuu bilaabay dhoolatus burcadbadeed si uu shaqaalihiisa uga dhigo kuwa heegan ah. Waqti badan kama soo wareegan. Markuu arkay 2 doomood oo ku soo socda raadaarka, wuxuu isticmaalay doorbin si uu u hubsado inay dhanka markabka u soo socdaan. Wuxuu si degdeg ah u soo wacay qolka matoorka oo uu ka codsaday inuu markabka wax yar leexiyo si uu u xaqiijiyo haddii ay doomanka soo raacayaan. Tani waxay xaqiijinaysaa tuhunka kabtanka. Wuxuuna hubsaday in burcadbadeedu ay ku soo wajahan yihiin. Wuxuu si degdeg ah u wacay ciidamada badda ee Ingiriiska wuxuuna uga warbixiyay xaaladda jirta. Gabadha howlwadeenada ka ah ayaa u maleynaysay doomahan inay kalluumaysato yihiin balse waxay u diiwaangelisay cabashada kabtanka. Kabtanka ayaa hadalka ugu gabagabeeyay inaysan kalluumaysato ahayn. Mar kale ayuu eegay doomihii oo hadda markabka u jira 1 mayl iyo bar. Wuxuu ogaaday in dadka saaran ay hub wataan. Waa uu argagaxay kabtanka. Si degdeg ah ayuuna ugu fakiray qorshe. Wuu og yahay in burcadbadeedu ay sheekadoodu dhageysanayaan. Markaas ayuu taleefanka dhegta saartay oo u yeeray markab dagaal oo been abuur ah. Cod qoto dheer. Kabtanka wuxuu iska dhigayaa inuu yahay askari markab dagaal saaran. wuxuuna sheeganayaa inay u soo dirayaan weeraro xagga cirka ah si ay u weeraraan burcadbadeedda. Qorshihiisii waa uu shaqeeyay. Hal doon oo burcadbadeed ah ayaana cabsatay. Jihadoodii ayay bedeleen. Dib ayayna u noqdeen. Laakiin doontii Muuse iyo shaqaalihii la socday ayaa sii wada socodkoodii. Intaa kadib, kabtankii ayaa ku amray shaqaalihii qolka matoorka inay xawaarahooda hoos u dhigaan ayna markabka u leexiyaan bidix iyo midig. Tani waxay gadaashooda ka sameynaysaa hirar waaweyn taas oo doonta burcadbadeedu aysan ku socon karin. Cadaadiska hirarka ayaa sababay inuu matoorka doontu xumaado. Habkaas markabku si badbaado leh ayuu ugu shiracday. Habeenkii, kabtanka wuxuu qabanqaabiyay kulan uu isugu yeerayo dhammaan shaqaalaha markabka. Wuxuuna u sheegay in burcadu la dhibaateeyay maalinta. Waxaa laga yaabaa in mar kale ay soo weeraraan berito. Sidaas daraadeed qof walba waa inuu feejignaadaa. Mid ka mid ah shaqaalaha markabka oo cabsanayay ayaa ku andacooday in shaqadoodu ay tahay daabulidda agabka ee aysan ahayn inay la dagaalaan burcadbadeedda. Wuxuu u soo jeediyay inay leexiyaan jihadooda oo ay maraan mid ka ammaan badan. balse kabtanka oo cilmi baaris ku soo sameeyay ayaa u sheegay in deegaankan ay ku sugan yihiin 5 kooxood oo burcadbadeed ah oo jihooyin kala duwan ay ka shaqeeyaan. Sidaas awgeed, waxa uu wanaagsan ay tahay inay safarkooda sii wataan. Subaxdii xigtay, burcadbadeedii ayaa haddana soo raacay kabtanka. Wuxuu si degdeg ah ugu digay shaqaalihii markabka. Kadibna wuxuu wacay ciidamada badda ee Mareykanka isagoo u sheegay xaaladda degdeg ah. Howlwadeenku wuxuu u xaqiijiyay in ciidanka badda ay halkaasi joogi doonaan waqti yar, balse burcadbadeedda ayaa markaaba aad ugu soo dhawaa markabka. Sida awgeed waxay ku fureen tubooyinka biyaha si ay cadaadis u saaraan, balse xirfadda Muuse darteed waxay ka fogaanayeen tubooyinka biyaha waxayna bilaabeen inay rasaaseeyaan markabka. Waxay isticmaaleen jaranjaro. Ugu dambeyn markabka ayay soo fuuleen. Kabtanku wuxuu ogaaday in shaqaalaha naftoodu halis ay ku jirto, wuxuuna ku amray inay si degdeg ah ugu dhuntaan qolka matoorka, halka isaga iyo 2 ka mid ah ay kor joogi doonaan. Wuxuu sidoo kale ku yiri waa waqtiga cashada oo ah eray ay isku fahmaan, taas oo micnaheedu yahay in shaqaaluhu ay ka soo bixi karaan qolka matoorka markii ay maqlaan ereygaas. Waxaana loo sheegay inay meeshooda joogaan. Wax yar kadib, burcadbadeedda ayaa gudaha u galay qolka kontaroolka iyagoo qoryaha ku qabtay 3dooda. Muuse wuxuu u sheegay kabtanka in aan loo baahnayn inuu cabsado oo aanay halkan u joogin inay qof ay dilaan. Wuxuu ku yiri aniga isoo fiiri, hadda aniga ayaa ah kabtanka. Captain Phillips
ayaa ku andacoonaya in markabka kaliya uu haysto sahay cunto iyo waraaqo marka laga reebo 30,000 oo dollar oo uu soo bandhigay burcabadeedu inay qaataan 30,000 kaale nin tugsada maan kula ekahay Muuse waxa uu weydiistay dhammaan shaqaalaha in loogu yeero qaybta sare si uu si buuxda ula wareego kabtankii wuxuu la xiriiray kuwa kale wuxuuna ugu yeeray xagga sare laakiin maadaama uusan dhihin ereygii ay isku fahmayeen shaqaaluhu waxay ku sii jireen qolkooda Muuse waa uu xanaaqay wuxuuna ku amray in qolka matoorka la geeyo laftiis kabtankii wuu aqbalay in qolku geeyo wuxuuna u sheegay inay taxadaraan sababtoo ah haddii nalalka qolka matoorka la damiyo aad ayay mugdi u noqonaysaa in la dhaxmaro wuxuuna si qarsoodi ah fariin ugu diray shaqaalaha ku jira qolka matoorka waxay go'aamiyeen inuu kabtanka codsanayo inay damiyaan nalalka madaxa injineerada Mike aaday si uu u soo damiyo halka sarkaalka ugu sareeya Shane uu isagana doontay biyo isla markii kabtanka Muuse iyo saaxiibkii oo 17 jir burcabadeed ah Bilaal waxay soo aadeen qolka matoorka kabtanka wuxuu isku dayay inuu mashquuliyo isagoo geenaya qolal kale balse Muuse waxa uu arkay khariirada markabka wuxuuna ugu celiyay inuu isla markiiba geeyo qolka matoorka maadaama qolka matoorku aad u kulul yahay kabtanka wuxuu u soo jeediyay inay aadaan qolka cuntada oo ay marka hore biyo ka soo qaataan saddexduba waxay soo aadeen qolka cuntada iyagoo maagsiinaya fursad uu ku damiyo nalalka qolka matoorka Shame oo weli ku jira qolka cuntada ayaa dhuumanaya markii uu arkay kabtanka iyo burcabadeeda oo soo galaya kabtanku wuu arkay wuxuu si bareer ah u weydiiyay Bilaal sababta uu kaba la'aan u yahay markay saddexdoodu baabaxeen Shame waxa uu wacay shaqaalihii ku jiray qolka matoorka wuxuuna u sheegay inay dhalo jabiyaan ayna albaabka u dhigaan si ay dabin ugu noqoto Bilaal qaaluhu waxay ku qasban yihiin inay dhalooyin jabiyaan kuna daadiyaan albaabka laga galo wax yar kadib markuu Bilaal u soo talaabay qolka uu dhaawacmay in cabaar ah ayuu xanuun la qaylinayay kabacdina qolka ayay sii galeen isla markaasna nalalku waa ay damiyeen taas oo ka dhigaysa mid aan suurtagal ahayn in wax la arko Muuse midaas waa uu qaadan waayay wuxuuna u sheegay kabtanka inuu u jawaabo laakiin kabtanka nin aan waxba ogeyn ayuu iskaga dhigay Muuse wuxuu kabtanka ku amray inuu Bilaal u kaxeeyo xagga sare ee markabka inta uu raadinayo shaqaalaha kadib markii kabtanka iyo Bilaal ay ka tageen shaqaaluhu waxay heleen fursad ku filan oo ay ku weeraraan Muuse waxay ku guuleysteen inay ku qabtaan ilbiriqsiyo waxay Muuse ku qasbeen inuu saaxiibadii u sheego inay sii daayaan kabtanka iyo labada kale ee la joogta haddii ay rabaan inay Muuse nolol ku helaan kabtankii ayaa Muuse u soo bandhigay inuu siinayo doon badbaadin iyo 30,000 oo dollar si ay markabka uga baxaan wuuna ka aqbalay intaa kadib kabtanka wuxuu baray mid iyaga ka mid ah inuu kaxeeyo doonta badbaadada Muusena uu u dhiibo lacagta isla markii uu Muuse doonta soo galay mid kale oo burcadka ka mid ahna uu banaanka joogo Muuse wuxuu u tilmaamay inuu kabtanka gudaha ku soo tuuro waxayna si degdeg ah u kaxeeyeen doonta waxayna la carareen kabtankii shaqaalihii waa ergagaxeen laakiin waxay go'aansadeen inay dabaraacaan doonta iyagoonan doonaynin inay kaligiisa ka tagaan kadib ciidankii badda ee Mareykanka ayaa lagu wargeliyay xaaladaas waxaana la geliyay heegan sare waxay badda u soo direen diyaarado si ay ula socdaan doonta badbaadada waxay qiyaaseen in doonta u socoto dhanka Soomaaliya oo ciidamada badda aysan waxba ka qaban karin afduubkaas marka waa inay badbaadiyaan kabtanka inta ay biyahooda ku jiraan burcabadeedu waxay go'aansadeen in kabtanka madax fur u haystaan si ay malaayiin dollar uga helaan lacagta caymiska ee shirkadda maraakiibta habeenkii burcabadeedu daalka ayaa ka batay waxay bilaabeen inay dhexdooda dagaalamaan waxaa intaa u dheer inay isticmaalayaan qaadka si ay energy uga helaan maalintii xigtay waxay u bilaabatay iyagoo u socda dhinaca badda Soomaaliya balse waxay waayeen xiriirkii qofkii la talin jiray kabtanka si caadi ah ayuu ula sheekaysanayay burcabadeeda wuxuuna sii waday inuu su'aalo weydiiyo mid ka mid ah burcabadeed oo lagu magacaabo Najiib ayaa aad uga carooday wuxuuna soo weeraray kabtanka Muuse ayaana ka celiyay wax yar kadib markabka Bridge ayaa doonta horteeda yimi wuxuuna ku shiday nal weyn isagoo indhaha kaga qabtay burcabadeeda qof magaciisa ku sheegay Nimo ayaa saaran markabka Bridge kaasoo af Soomaali ku hadla wuxuu la xiriiray burcabadeeda wuxuuna u sheegay in cunno iyo biyo loo keenayo kahor intaanay gorgortamin maadaama ay rabaan inay ka taxadaraan caafimaadka kabtanka Muuse wuxuu dalbanayaa malaayiin dollar oo uu ku bedesho nolosha kabtanka oo uu xitaa ula kulmo ciidamada Mareykanka si ay uga wada hadlaan Nimo iyo qaar ka mid ah askarta ayaa fuulay doon waxayna soo aadeen dhanka doonta badbaadada waxayna weydiisanayeen caddeyn ah inuu kabtanku fiican yahay kahor intaysan gorgortan ka gelin Muuse wuxuu u soo saaray banaanka markuu kabtanku ka codsaday in ciidamada ay la xiriiraan qoyskiisa una sheegaan inuu fiican yahay wuxuuna u sheegay inuu ku fadhiyo kursiga 15aad ee doonta burcabadeedu waxaa ka hoos baxday qishkan oo uu bixiyay kabtanka oo sahlaya in ciidamadu saadaaliyaan booska uu ka fadhiyo doonta Muuse wuxuu dib ugu riixay kabtanka gudaha doonta wuxuuna dalbaday 10 milyan oo dollar Nimo wuxuu u sheegay inaysan fududeen
balse ay ka wada xaajoon doonaan shuruudaha qaarkood. Najiib oo xanaaqsan ayaa biskoolada dhigaha ka saaray kabtanka wuxuuna xabad ku dhuftay saqafka kore ee doonta. Muuse ayaa si degdeg ah u wacay markabka Bridge oo walwalsana na sheegay inuu kabtanka fiican yahay uuna diyaar u yahay inuu teleefanka kala hadlo. Muuse wuxuu u sheegay inuu mar kale la soo xiriiri doono markuu Soomaaliya tago. Muddo kadib maraakiibta kale ah USS Liberton iyo USS Boxer ayaa iyaguna yimi iyagoo hubeysan oo diyaar u ah inay qabtaan. Kabtanka ayaa Muuse u sheegay inuu u baahan yahay meel uu ku kaajo. Markaasna Muuse wuxuu u ogolaaday inuu baxo. Bilaal ayaana kaga hormaray banaanka. Kabtanka wuu u khiyaanay, biyaha ayuuna ku tuuray Bilaal, isaguna waa uu ka dawabooday isagoo isku dayaya inuu ka baxsado. wuxuuna bilaabay inuu u dabaasho dhanka Bridge. Shaqaalaha badankood waxay arkayeen laba qofood oo biyaha ku jira maadaama ay mugdi tahay, ma awoodin inay aqoonsadaan inuu kabtanka yahay. Muuse ayaa markaas ku soo booday biyaha isagoo isku dayaya inuu dib ugu soo celiyo kabtanka, halka Najiib uu ugu hanjabay in uu toogan doono isagoo ka baqaya in la toogto. Kabtanka ayaa si ula kax ah ugu soo laabtay doonta. Najiib oo xanaaqsan ayaa feer iyo laad la dhacay kabtanka, laakiin Muuse ayaa ka celiyay inta aanu dilin. helikabtar ay leeyihiin ciidanka ayaa dul hayhabaysay doonta. Bridge ayaa ku amray Muuse iyo raggiisa inay isdhiibaan. Muuse ayaa ugu jawaabay inuu kabtanka albaabka doonta ka soo saaro isaga oo biskoolad madaxa uga haya. Kadib diyaaradda ayuu dhowr xabo ku riday. Hadda Bridge waxay bilaabaysaa inay magacaawdo mid kasta oo ka mid ah burcabadeeda iyo halka uu ka yimi, iyagoo uu akhrinayo wax kasta oo ku saabsan hogaamiyahooda. Muuse iyo kuwa kaleba aad ayay uga naxeen arrinkaas. Markay hadlayeen, ciidamo ayaa isa soo taagay qaybta sare ee markabka Bridge iyaga oo ku hubeysan qoryaha shiishka. Waxayna farta ku fiiqeen burcabadeedii oo ku jirtay doonta, iyaga oo ku raadinaya fursad ay ku toogan karaan marka ay afartooduba shiishka u fuulo. Skiff ayaa Muuse ka soo saaray doonta isagoo u kaxeeyay dhanka Bridge si ay halkaas ugu wada hadlaan. Intaysan doonta ka soo tagin, waxay bax funaanad jaalla ah ku jirta u tuureen kabtanka. Ninka funaanada u tuuray kabtanka wuxuu kula taliyay inuu xirto si uu qabowga uga dugsado una ka fariisto doonta isla kursigii uu fadhiyay. Shiishyahanadu markaan waxay isku heli laayihiin saddexda burcabadeed. Kabtanka wuxuu bilaabay inuu qoyskiisa u qoro waraqadii ugu dambeysay. Najiib oo hadda ah hogaamiyaha kooxda inta uu Muuse maqan yahay wuxuu arkay isaga oo qoraya, wuuna ka qaaday. Kabtanka ayaa carooday wuxuuna weeraray Najiib. Dagaalkooda ayaa ku dhamaaday iyadoo kabtanka indhaha ay ka xireen burcabadeeda. Najiib ayaana markaa garwaaqsaday in aanay si nabad ah uga bixinin xaaladda. Markaasna wuxuu isku diyaarinayaa inuu dilo kabtanka. Nimanka joogay Bridge ayaa si toos ah u arkayay waxa ku dhacaya kabtanka. Kabtanka ayaana u sheegay Najiib in uu jecel yahay xaaskiisa, isagoona ka raali gelinaya inuu guriga joogin. Bilaal iyo Cilmi markaan shiishka ayay soo galeen, laakiin Najiib weli kama uusan soo muuqan. Markaan taliyaha ayaa amray in doonta lagu istaajiyo xariga, taas oo sababtay in Najiib uu soo galo shiishka. Kadib markii ay dhammaan burcadu soo galeen shiishka, hal mar ayaa la wada toogtay. Kabtanka ayaa wada dhiig noqday, wuuna qayliyay markay saddexdooduba dhinteen. Muuse ayaana markaas la xiray. Muuse wuxuu ciidamada weydiiyey haddii ay saaxiibadii dileen. runta ayayna u sheegeen. Tanka waa la badbaadiyay, waxaana laga daaweeyay dhaawacyadii soo gaaray isaga oo weli shoogsan. Wuxuu weydiiyay haddii qoyskiisu ay og yihiin inuu bad qabo, waxaana loo sheegay inuu la hadli doono. Kabtanka ayaa dib ula midoobay qoyskiisa, waxaana Muuse lagu eedeeyay burcadbadeednimo, waxaana lagu xukumay 33 sano. Kabtanka wuxuu dib ugu noqday shaqadiisa badmareennimo sanad kadib. fadlan haddii channelkan aad ku cusub tahay subscribe ee muuqaalkana like garay.